Kismaayo ayaa magaaladaasi tan iyo shalay waxa khalkhal ku abuuray markii halkaasi ay tageen ugaas Maxamed Weli Sheekh Axmed Nuur iyo 5 xubnood oo kale oo isaga la socday oo hore uga tirsanaan jiray midowgii maxkamadaha oo imikana sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka la magac baxay isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya. haddaba waxaa noo suurta gashay inaannu waraysi markii dambe la yeelanno ugaas Maxamed Weli Sheekh Axmed Nuur oo markaasi ku sugnaa duleedka magaalada Kismaayo. Maxamed Xaaji Xuseen oo waraysigaasi la yeeshay ayaa ugu horrayntii waxa uu weydiiyey waxa isaga iyo ragga kale ee la socday ay ka soo dooneen magaalada Kismaayo. adeer magaalada Kismaayo arrimaha iyo gaar ahaa iyo arrimaha caama labadaba waan weyn. marka arrimaha caamkeedu timid maxay ahaayeen? arrimaha caamka waxay ahaayeen wacyigelin ummadda lagu sameeyo oo la wacyigeliyo oo xaaladda maanta jirta ee dhabta ah la dareensiiyo. marka ma wacyigelin iyagu aanay ogeyn oo si gooni adigu aad u siday bay ahayd? sababtay tahay iyagu ma ogaan karaan. maxay tahay markaa wacyigelintaad waday? wacyigelintu waa in dalka laga saaro ciidamada Itoobiyaanka ee gumaysiga iyo kuwa la jira oo u fududeeyay dalka laga bixiyo way. sidaan maqalay markaasi magaalada waxaad isku dhacdeen maamulkeedii maxaad isku qabateen? ma jiraan wax maamul oo isku dhacnay iyo wax maamul oo dibna dhaxmaray midna ma jiraan. arrintaasi waa ku tirkuteen way. miyaanay jirin in lagu yiri magaalada ka bax oo waliba waqti lagu qabtay inaad kaga baxdo? arrintaasi waa arrin la been abuuray weeye. arrintaas mana suurta geli karto. marka hadda ma waxaad wadaa abaabul aad magaalada ka wado oo aad doonayso sidii dagaal loo abuuri lahaa Itoobiyaanka iyo dawladda ku meel gaarka lagula dagaalamo? adeer arrintaas waa waajib muqaddasay nagu tahay inaan samayno waana wax ilaahayna amray caqliga saliimkiina ogol yahay. dadkana 3 baa loo qayminayaa nin dadka wacyigeliya nin lacagta bixiya iyo nin dagaalama. marka qorshahan aad wadaa ma wuxuu ka mid yahay qorshana soo gaadhaya inuu jiro oo ah in nin walba loo diro deegaankii uu ka soo jeeday oo magaaladii Muqdisho lagu kala baxo oo markaasi la isballaariyo? kaas miyuu qayb ka yahay wacyigelintaadii hawshaad wadaay? qorshahani wuxuu ka mid yahay qaabka istaraatiijiyada ee la rabo dalka in looga saaro Itoobiya iyo waxa la socda qayb ka mid weeye waana wax dhammaan Soomaaliya oo dhan ka socda weeye. insha Allah ta'ala xilli aan dheerayna waa lagu diirsan doonaa hadii la hayda. yaa kugu weheliya adiga abaabulkanaad wado ma ciidamo iyo deegaan iyo dhul aad joogtaan baa jirta ururkiina uu ka dagaalamayo? dalka Soomaali baa iskale ninkii Soomaaliga ana meel kasta ka howlgelaya gumaysigana meel kasta gurdarro iyo hoog iyo gantaal baa u yaala. Maxamed Weli magaalada deegaankaasi iminka Jubbada Hoose ma waxaa jira meelo ururkiina uu ka dagaalamo uu ka muuqdo? taasi nooma muuqata anaga magaalada Muqdisho baa la sheegaa inta badan. adeer miisaanku hadda meeshuu jiro ayaa waxa weeye laga dagaalamaa. jubbooyinka iyo goboladan kale oo dhan hadda oo koonfurta ma joogaan ciidamada Itoobiya. yoolku annagu waxa weeye waa ciidanka Itoobiya iyo muxuu ahaa dhuuniqaatayaalka la socda. targetkeegu waa midkaas. meeshay ugu xoog badan yihiinna waxa weeye waa Beledweyne, waa Baydhabo, waa Xamar. wayna la kulmeen dhibaatooyinkii iyo xanuunkii faraha badnaa ay arkeen. way dhadhamiyeen cadaabkii haddana way dhadhamin doonaan. meel kasta oo ay tagaanna waan ku taabanaynaa. hadday Jubbada yimaadaan waa lagu taaban, hadday Gada tagaan waa lagu taaban, hadday Bakool tagaan waa lagu taaban. meel ay ku nabadgelahayaan ma jiraan. Maxamed Weli waxaa jirta in deegaankaasi hadda uu iska degan yahay. meelaha kale ee dagaalka aad ka wadaan way jirtaa sida qalalaaso uu jiro. ma waxaad doonaysaa markaa inaad dadka jubbooyinka aad dagaal kale iyo dhibaato kale iminkana aad u horseedaan oo aad u soo rartaan dagaalkii magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo? annagu dagaalada ma xawilo. dagaalada waxaa sababa dalka nimanka qabsaday oo gumaysiga ah. meel nabadi ka jirtana dhib kama abuurna. annagu meesha xabashi ay taagan tahay naar baa ka ifaysa. ninkaa istaagana naar baa ku ifaysa. targetkuna wuxuu saaran yahay Itoobiya iyo waxa raacsan. miyaanu hadda aan ka dhaxgalay miyaanu hadda qalalaaso abuuraynin hawshan aad wadayd magaalada ku timid oo la sheegay magaaladu maanta inay kacsanayd marka aad soo gashay dagaalkii abaabulka aad wadana miyaanu dib u keenaynin magaaladaas oo qas abuurid ahayn? adeer horta waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa wuxuu sheeg sixir ka daran. kuwaasoo kala ku warramay magaalada anigu dadka ugaaskoodii baan ahay, sheekhoodii baan ahay, odaygoodii baan ahay. waxaan xaq u leeyahay inaan u imaado afkaarta wanaagsan oo akhriya adduun baan u sheego. qalalaasana ma dhicina waa la soo dhaweeyay. nimanka aad sheegayso oo maamulka aad sheegaysana warba kama haynin magaalada inaan soo galay iyo inaan ka baxay midna maysan ogeyn. shacabka ayaa i soo dhaweeyey, shacabka ayaa i soo ambabixiyey, ayaga ayaa i raba.
ayagaa raba inay dalkooda iyo dadkooda diintooda ninkii wax u qabanaya ay garab istaagaan ayagaa raba doonaya nina kama celin karo haddii naga bax aan lagu odhan maxaa kaa saaray hadda magaalada adeer qorshaygu ma ahayn magaalada inaan ku raaxaysto wakti iyo fursad baan lahaa fursadahaygiina waan ka faa'iidaystay bal laba kale oon leehay baanan u degdegayaa haddii ilaahay iyo shaqay sugays waxaa jira in deegaankaasi aad joogto lagu sheego inuu isna howlgalla ka wado sheekh xasan turki oo ka tirsanaa maxkamadihii markaa ma isla socotaan adeer sheekh xasan keliya maehe kun baan isla soconnaa oo soomaaliya u diyaarsan cadowga sidii ay dalka uga saari lahaayeen qof kasto ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo soomaaliya wuxuu oo diyaar u ah barnaamijka inuu u istaago waanu garab taagannahay isku waddaanan nahay walaalaanan nahay insha allahu manhajkaniga iyo barnaamijkanaguna wuxuu ku binaysan yahay dalka in laga saaro cadowga iyo kuwa dhuuni qaatayaalka ee u adeegaya kaasina wuxuu ahaa ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur oo isagoo ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed xaaji xuseen oo ka tirsan v o e da